laba nin baa sheekaysatay oo yaala oo Soomaaliya waayaha adduunka laga sheekaystay in baa wuxuu warniyo wariga masiibo ma kugu dhacdo markaasuu yiri haa waabay masiibo igu dhacdo suu yiri maxaa kugu dhacay nin waxa igu dhacay buu yiri wiilkayga curad oo kaligiisii ahaa baa inta bahal qaniinay biga dhigto marka masiibadaas waa igu dhacday kii kala wuxuu yiri aniga warigay masiibo iguma dhicine waabay cirib isaartay masiibo aniga iguma dhicin laakiin mar bay cirib isaartay suu yiri oo maxaa kugu dhacay suu wuxuu yiri laba reer baan lahaa dhowr iyo 20 ilmoodna waa lahaa 200 iyo 300 oo geela waa lahaa ari ku neef gaariyana waa lahaa laba xaasna way joogtay maalinkii dambaan ka safra habeenkii baan ka dhaxay salaadii subax waagu markuu bariyay aduu nus saac meelahaas baan reerku meeshu deganaa ku soo beegnay roob baa habeenkii daay marka waxaan imid buu yiri reerkii oo dhan oo xalay inta wariq ku dhacday hal qof oo nool iyo hal neef oo xoolaay nool ah soo jira dhowr iyo 20 ilmood labadii xaas geeli arigii awrtii xataa dhimatay marka wuxuu yiri waxaan isku dayay xoolihii iyo saasay u jiifaan qortay waxay ku hayaan macaash dhulka ku wada hayaan inaan midba barkiciyo wax nool inay ku jiraan saa ugu wareegay hal rati ah oo raroy ah oo geed ku xirnaa baa ii kacay oo dhagay mid xalad dilaaceen qaraxi meesha ka dhacay baash xoolihii halkaas neef markaan ay rabo inuu ka noolsaa meydkii tiriyeebiya dadkii baan fiirshay dadkii oo dhan waa meyd laakiin waxaan waayay biyo labadii xaas mid ka mid ah oo uur lahayd oo 9 bilood ah baan waayay raadna mara roob baa daay meelaha marmaray meelmaha marmaray markii dhamaan uu yidhi ayuu geed hoosta ku socsan waa fiirshay gabadha way nooshay ma dhiman ayuu way socsan tahay haddii baan soo kaxaystay keeriyaan soo saartay gabadhii baan u keenay wuxuu yiri waa ku rara gabadhii baan inta u sameeyay meelaan oo darga camala baan saaray haddii baan la dhaqaaqay وانا سجال كذي بعد بعد الواي ما أنا كنتم بان ولا أبوي يرتقي وإسكان بقولي يوم مستحيل واحد عادي مشوا جور عصر يدور رحلة وهو خصدت سعي بر ماله حاسة بان وبيجو كوي بدوي وبي مال مرة كوي آير بان تر جوادنا فول بقى كل جاي بانا ساعة حتى ما كان سوق بحية كمان فكرين بيجي وجوادنا أما يكوفوا فول تايو وح سكين يمنا موت وحير مرة لما جوادي فوش قبضتين تيجي بان كذا شيء ويل بيد شيء لكن نصيب در waxaan xudunta kaga gooyo male geed baan ka fuulay bi xaleef ka soo goostay bi xaleefkan kaga jaray xudunta waa nolol laga yaabo inay aad u adag tahay laakiin ninka ka sheekeynay waa nin caad u sheekeynay asagu waa ninka la balaaya isaabay cirib yaani igu ma dhicin waligeed balaaya wuxuu yiri markay gabadhii uu mushay waxana afkana ma siin gabadhan waa wareersantay oo dhan ba nooc kale ay tahay waa gabadha xal wariq ku dhacdo dadka hore dadka dhan ka dhinteen waxaan afka u gasho cunta ma hayo ratigi baan bireeyay ayr bartiga neefka geela waxa ku jira kuruskiisa cad la yiri cad iska bisil oo bisayla la dhaho cadkii baan uga jeexay kuruska afkaan u gashay markaas indhaha kala qaaday gabadhi markay fiicnaatay xogaa indhihi kala qaaday oo cadkii cuntay baan iribu ratigaan noo qalay yahay ila meesha ma jiro umul baan ahay isbitaal baan 3 bilood ku jiray waxaas ma leh 3 bari ku jiray wixii ma leh baan iribu yiri oo nooga soo dhaamay ratiga intaan sii qalay inta qaadatay jeega wabiga daq gabadhi mar alla markay istir wabiga aad saa u taabsiisay jeergaankii baalkii jeegi yaxaas baa ku dhigtay markaas aan waxaan arkay jeegi iyo xirka u duulay waa soo orday la tagi marka wiilkii yaraaba ku soo laabtay hilib male marka qalitaan iyo u dhamaatay qofkii waa hilibka u qaliyay gabadha ahayd asagu nolol kuma jirto wixii ilmaha yar baan iska qaatay markii aan gabadhan waa u jeexjeexay ilmihii asagu ku duduuban saa u orday waxaan soo baxay qorraxdu sii dhacayso ari meel daaqay wiilkii yaraa oo aan watay oo aan asna ku jirin hooyadina ma nuugin noloshu waa nolol aan caadi ahayn baan ridii ugu horeysay oo irmaan afka u gashay mar alla markaan saa afka ugu gashay wuu qaawan yahay asagoo ilmaha yarka wuxuu haystay maraba ku duuduubay ilmu ku duuduubay baan waxaan ku warhelay bahal u lahoy ugu dhagtay kor baan u fiirshay gabar inaan ay uulaynayso waxay tirbilaayada reer ariga dhex dhigtay maxaa saas markaan u istaagay oo ay yartay inaan qaawanahay bayse siidays way car 5 daqiiqo kadib waa kuwaan odayaal dhan oo ornimo dhan oo xoog loo wada ordayo seefo iyo waramo iyo wato gabadha u qayl geyso tirbilaaya ariga ku dhaxar qofkii ugu horeeyo aan arkay sadogay buu ahaa oo gabadhii maanta la iga cunay dhalay arintii baan uga sheekay waa la kaxeeyay horta odayga baa mara isaaray bi loo ninkuu qaaway go'ay buu saaray bas waa la kaxeeyay wuxuu yiri guriga baa la geeyay oo gabadhay la dhalatay bi uulaysay wada odaygu markuu cuntay isii asagoo ila hadlay muu tagay
يوشيخ ينمون سوى كحيو قبل ولا يقوم يهريو همين كيبا أقل باليجي حد يربو يري إن كان مركو وش كاين أيوه دور يلا بعتن الموض يحول ملايين عليا مركو ولي جاي دبعتي وما لكن ما أنا كاسر عربي ساعتين تاسي وحي الصورة هتكبر هنا يساع الدون كان نورش وين يتهاي أين نسكت سهلني مركو نورش هذا يكون قدر عن كرتا نورش از marka waa mid naftaada ku dhacday waxa jiri karta inay balaayadu kaaga timaado ama ku dhacdo dadka ku xigay oo waalidka inay ku dhacdo ilmahaaga oo ilmaha kaaga timaado inay kaaga dhacdo xaaskaaga inay kaaga dhacdo qof adiga kugu xeeran dhibaatadaas waa dhibaato gooni oo adiga gooni ku taabanaysa tii horena maxay dhibaato caam dhibaatooyinka marka mar labaad waa taan waxay u kala qaybsan yihiin mid waqti leh iyo mid aan waqti lahayn oo iska joogto midda waqtiga leh hal qodob baa la iska ilaashaa inaadan ceeboobin ولكن ما مقشين مصيبة يا مقعبة مالين بيبحان دبعتو هذي هل مالين تاجنتهاي أبار بعد عادي مالين كاس أضوها هاري وحلا جاي وإنه بري روب دي دونه هذا مركب مالين كعيبودي دبعتو راس وحي أبا هانتا إن المسكحة فوق السون ده يصير وروحاني وقت لو وقت أنا حلين دونه هذا عادي سكت مركب إنه سنتاس فوق ده والله مركب ترسيب كوبان عن خبرنا أوتل معنا qofku waxa looga baahan yahay mar alla markii qofku wax ku dhacaan nolosha qayb kamid ah waa keenay ku cuslaatay qodobka ugu horeeyo oo raba inuu dhaqo waxa weeyna ilaahi wa inna ilayhi raaji'uun laana masiibooyinka dhan ilaahi baa keena qofku marka inuu isla marka xusuusto oo inna ilaahi wa inna ilayhi raaji'uun mar alla markii kugu dhacdo intee leeka rabta masiibadu hal leeka waxa laga yaabaa in Nabi sallallahu alayhi wasallam ee ganacsi Aisha xadiidka warinaysa waxa laga yaabaa way tiri inta guriga iga danto fariista inuu nabigu dhaho la inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun marka masiibadu intee leeka hal leekaatee qodobka muhiimka qofka waa laga baahan yahay wax weyn